geeska Afrika man waxyaabaha nala gudbo waxa weeye مثلا waxa jira wax factisa aan factska jira waxa weeye macna nabadgelyo iyo xasilooni kama dhacayaan gobol geeska Afrika unless aan qadiyad ogaadeen xal loo helin waara macna iyadoo xal waara loo helin macna gobolka xasilooni kama dhici karayso karanaysa halka ogaadeen wuxuu ku jiraa in shacabkaas ay ka tilintiisa loo ogolaado سادرتين سي أي كوا وحاسو دان أسورة قلان وأنا إنغو نكترسنو قابكي عن مقارنة كسور قلين لحين وحكاك بدلي لحين هوليه عن قبليني سياسة العالم كاليوم يعني وحان كأمن سنة مركلا فيريو حاوي وحيابا سياسة السوغن باجرو وجهدو أي لا ضعي وأنا اسمت بدلين انت بلان أما حالة إمرجنسي هلو جرو أما حالة عادة هلو جرو يعني وحكام ده كو أرجعيسنا يو حكتير نبض موجود، يعني جهادو موجود أرجعيسنا موجود حكتيرنا موجود، والسياسة سكون جهادو لهذا هاي دين تأوسي قاب سياسة أو خلدان لو أديك سديدنا موجودين، لكن إن عكالي يدنا موجودين إن تد كنا لو برتل ما بيصير الدين تودا، أريد أسوأ هني توبيا يديك ستو ومسكي توبيا وأديك سدويا. wuxuu uga golleeyay inuu ku beer la xawsado wadamada reer galbeedka ku beer la xawsado isla markaana uu kaga faa'iideysto barnaamijyada argagixisada dagaalanka oo uu dhaqaale kaga qaato taageero siyaasadeedna uu kaga helo reer galbeedka sadarteed waxaan ku raadahay anaguna ma ogolin in diinta si khalad loo adeegsado dadka in lagu target garaysto ma ogolin daris wanaag iyo nabad ku wada noolaansho ayaa saldhig u noqon kara iskaashi dhexmara bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dunida macna sidaas darteed waxa laga maarmaana in beesha caalamku ay talaabo ka qaado waxyaabaha Itoobiya ay sameynayso yani khalkhalka ay ka abuurayso gobolka geeska Afrika يعني وين بيش عالم طلابة كقاعدة يعني وحل بكسر بيش عالم كا ما هي لو قطع وضوء مكانسي كل واحد سمين يسوع لين عايز كاشة معارض كا واحد شراء يعني إصبحيسي روان السمية يعني إصبحيسي كاس أو PFD لده وإصبحيسي كا ضدك حرنما ضد الديمقراطية ده إصبحيسي وحل أساسي طبيعة سنة كهرة waxaan loo asaasay magaalo Oslo ee wadanka Norway waxa isla asaasay shan qowmiyadood baa isla asaasay qowmiyadda Soomaalida Oromada Sidaama Gambela iyo Benishangul saddexdaas qowmiyadood markaa maxay ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin dhamaantood ama maxaa la oran karaa su'aasha haddaan dhinac kale u bedelo isbahaysiga muxuu kaga duwan yahay isbahaysiyadii kale يعني واحد شري إسباعيسي كلا أو جهاد ودل حريته وقديم رمود كعهد أو لبكوني اللحظة للسماء و AFD اللي شري سجلفتيسا إسباعيسي قاس تطبق أورور أو كلا دوام بكوبه أورور لبا أورور عم حارد ويكشري لكن إسباعيسي قاس إنتي وصن شرين دور بلاد لح بلاد بيتوزن شرين مو بربراي يعني سواء تو بربراي وحياة هاي أورور هذه السماء اسمه مبدأ اسمه هدف معي سناهين waxaa isugu yimid ururo qaarkood ay aaminsan yihiin inay shucuubtooda ay ka talin gaarsiiyaan qaarna ay aaminsan yihiin in Itoobiya oo magaranaysa mid ah ay hirgeliyaan oo badbaadiyaan oo wadaan oo saas ay u ilaaliyaan laba mabda oo isu imaan karaynin oo laba xisbi oo laba mabda oo kala duwan isku soo horjeeda magaranaysa aaminsan way adag tahay inay alliance ay ku wada jiraan oo magaranaysa ay xulfo noqdaan sadarta uu baabacay laakiin wuxuu kaga duwan yahay dadka ku midoobay iyo qowmiyadaha iyo ururada ku midoobay waa ururadii gobonimo doonka ahaa waa ururo dhamaantood doonaya inay dalkooda iyo dadkooda xornimo gaarsiiyaan sadarteed wuxuu chance u haystaa in uu guulaysto oo uu horumar sameeyo sababtoo waa dadkoo dhan way isla jaan qaadi karaan hal meel baa la higsanaya meesha la higsanayna waxa weeye in ay ka talin gaarsiiyo shucuubtaas wuxuu markaa PFD
كونغريسكي سوغو هوري وحو قبصدي عسمرة بشي مارس إنا دافتay go'aamo badan baa ka soo baxay Congress-kaas go'aamada ka soo baxayna garanaysa wuxuu ahaa waxa gogol dhig looga dhigayay waxa siyaasadda rasmiga isbahaysiga iyo waxa uu ka damacsan yahay garanaysa mustaqbalka Ethiopia waxa loogu yeero waxa la dejiyay qorshayaashii lagu dhaqmi lahaa markii nidaamkan uu meesha ka baxo charterkii la raaci lahaa iyo bulsho waliba xuquuqda ay u leedahay iyo qaabka ay u raadsanayso ay ka talin aftida laga qaadayo dadkooda iyadoo laga faa'iideysanayo arrintii hadda aan ka sheekeynay ah 19 iyadoo laga faa'iideeyay charterkii xilligaas iyadoo laga faa'iideysanayo waxa la dejiyay charter si cad u qeexaya in qowmiyad waliba ay xaq u leedahay in ay ka talinteeda oo bulshada ay u marto through aftida referendum in laga qaado dadkooda xilligay doonaan ay codsanayaan markii la dhaafo 2 sano ee meelgaarka ee laga sameeyo shuruucda iyo hanaanka dawladda lagu maamulayo waxa laga saaray marka meesha caqabadihii ku jiray charterkii hore ama ku jira qodobkan hadda ay dunida ku khaldaan 39 ku jira dastuurka Ethiopia caqabadahaas oo dhan macna waa laga suuliyay qowmiyadu waxay xaq u leedahay markii xilligaas u dhamaado in ay codsigeeda keensato kabacdina processkii aftida uu saako bilowdo wuxuu marka bilaabay BFD inuu la xiriiro ururada kale ee mucaaradka ah maalinta ka soo horjeeda taliska TPLF dhowr kulan baa ilaa hadda dhacay waxaana ugu xoog badan dadka la target garaysanaya waxay ahaayeen ururada amxaarada Gimbot 7 iyo garanaysa cidii la halmaasha waxa kale oo la target garaysanaya anfarta oo iyaguna leh urur mucaarada kuwaas oo dhan waxa socday ilaa hadda wada xaajood iyo qaabkii garanaysa lagu wada shaqayn kari lahaa marka ku dadaalaya cidii ku qanacda mabda'a iyo barnaamijka siyaasiga ee isbahaysiga inay ku soo biirto cidii kale ku qanci weydana in marka wixii laga wada shaqayn karayo laga wada shaqeeyo marka isbahaysigaas waa isbahaysi jira oo dhaqaaqay oo magaranaysa la ambaqaadaya xaaladda isla markaana diyaar u ah in uu kaalintiisa ka ciyaaro magaranaysa waxa mustaqbalka Ethiopia laga filayo ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan summary ku sameeyo macna wax badan baan sheegnay waxa la sheegay dadku inuu maskaxda wax ka qaado marka waxaan summary ku sameeyo barnaamijka ama mowqifka jabhadda marxaladda ku aadan marxaladdan hadda mowqifka ku aadan baan summary ka sameeyay soo qoraal aan akhrin lix qodob iyo ku soo yaabdiga u noqonaya qodobka koowaad jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxay ku qanacsan tahay horumarka uu halkan ku sameeyay iyo natiijooyinka wax ku oolka ah ee ilaa hadda laga soo dheelmay dhinacyada kala duwan ee halganka sida dhinaca ciidanka siyaasadda abaabulka bulshada iyo bisaylka wacyiga siyaasiga ah ee bulshada Soomaalida ogaadaya labo jabhaddu waxay aaminsan tahay in sida kaliya ay xal waara lagu gaari karo ay tahay iyadoo shacbiga ogaadaya uu xaq u helo inuu aayihiisa ka tashado fursadna loo siiyo inuu isagu go'aamiyo mustaqbalka siyaasiga ah ee dalkiisa saddex jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxay ku niyadsan tahay in ay guul ka gaari doonto haddii eebaydmo halganka gobonimo doonka ah ee ay hormuudka ka tahay waxaanay diyaar u tahay in ay halganka wado ilaa iyo inta laga xaqiijinayo himilada shacabka ah in ay xornimo helaan afar jabhaddu waxay si buuxda u taageeraysaa kacdoonnada ay wadaan shucuubta ku hoos dulman taliska TPLF sida kuwa ka socda gobollada Oromo iyo Amxaarada waxaanay ugu baaqaysaa dhammaanba shucuubta Ethiopia ku dulman inay u bahoobaan dagaalka la iskaga xoreynayo taliska wayaanaha
jawxa waxay diyaar u tahay inay dhiiri geliso oo kaalin hormuuda ka qaadato dadaalada lagu midaynayo xoogagga mucaaradka ay ka soo horjeeda TPLF iyadoo aan marna ka tanaasuleynin danaha asaasiga ee shacbigeeda. 5 iyadoo la tixgelinayo marxaladda kala guurka ah ee lagu jiro iyo isbeddelka la filayo inuu dhaco waxa ay jabhaddu ugu baaqaysaa dhammaanba shacbiga Soomaalida ogaadaya in ay danahooda gaarka u midoobaan fursadaha jirana ay ka faa'iideystaan iyagoo wada jira. jabhaddu waxay aaminsan tahay inuu dhammaaday xilligii u hoggaansanka siyaasadda gumaysiga isla markaana la gaadhay xilligii lagu hawlgeli lahaa siyaasad ku salaysan danaha shacbiga Soomaalida ogaadaya. sidaas darteed waxa ay jabhaddu ku baaqaysaa in gacmaha la isqabsado oo wixii horena la iloobo mustaqbalkana si wada jir ah loogu diyaar garoobo. 6 jabhaddu waxay rumaysan tahay in la gaadhay xilligii loo hoggaansami lahaa doonista shucuubta ee si dhab ah loola xisaabtami lahaa taliska dhiigyacabka ee TPLF. ceeb iyo fadeexad ayay ku tahay beesha caalamka in ay sii wado taageerada xukuumadda aan wax sharci ah ku dhisnayn oo si joogto ah ku galaysa dambiyo dagaal iyo kuwa bini'aadamnimada ka dhan ah. beesha caalamku waa inay taageerto xuquuqda shucuubta Itoobiya ku hoos dulman oo ugu horeeyo shacbiga Soomaalida ogaadaya. waxaan jeclahay intaas ku soo gabagabeeyo maaragtay hadalkii yar aan la wadaagay. waxaanan runtii ka cudur daaranayaa in waxay qaybo badan oo ka mid inaan soo gaabiyay sababtoo ah waxaa yar muuqatay xoogaha dadku ay yar daaleen oo aan islahaa aad ku falanqaysid meeshan yani kama sheegin marka dhammaan waad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin.